Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal kusoo dhawaada idaacada kulan magaalada Beledweyne qodobada ciyaaraha ugu door karoon subaxnimada waxaa kamid ah naadiga Ajax Amsterdam ayaa waxa ay 3-1 lugta koowaad wareega 16 tartanka Europe League kaga badisay 3-0 Dynamo Kiev ayaa waxaa 2-0 kaga badisay naadiga Villarreal ee reer Spain Manchester United ayaa barbaran iyo jable garoonkeeda Old Trafford kula gashay naadiga AC Milan ayaa la timid goolka barbaraha daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta lagu daray Slavia Praga ayaa waxa ay 1-1 la dhaafi waysay naadiga Rangers uu hogaamiyo tababaraha reer England ee tababara Steven Gerrard naadiga Granada ayaa waxay 2-1 kaga badisay naadiga Molde wareega 16 tartanka Europe League naadiga Olympiacos ayaa waxaa 1-3 kaga badiyay naadiga Arsenal xilli Martin Odegaard uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay uu dhaliyo naadiga Arsenal naadiga Roma ayaa waxay 3-1 kaga badisay naadiga Shakhtar Donetsk halka Tottenham Hotspur ay 2-1 kaga badisay naadiga Dinamo Zagreb